بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. وعدن كور قبتين سجود لبضي السنة وحلك هي مدحونا بيح موقال كستو صحافة وكدورتو يا مدال كستو وكهد لبو حكومة جاي فرماتش لبدي هبينا ودن بينا واحد بالشدة السومال لان بافينا سام مدحونا هودي قدم كصدنية تضباطات الدستور كجمهورية الصومال لا في قدي سكواد واحد دقيسة ذلك مسؤولية ديسة عدة هيساين المدحوينها هي حكومة ديسة سبب مد اللي وجود شيء دي أبي يدولة توبيا ما تعلم الله ما أنت الصومال لا عدة يتهين ومد الصهور يستاكتو وبالشدة أما ذلك يدتك بعفي سويديسة ومدحوينها waxaan leenahay madaxweyne soo bax ummadaada soo hor istaag dalka iyo dadka ba cafis weydiiso qodobka 129 waxa lagu dhaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 2 sano ka hor wuxuu ku dhaartay dalka iyo dadka inuu daacad u noqonayo inuu sinaan iyo cadaalad dadka ku hagayo mowqifka xisbiga wadani حسبك وطني وحو مركز توه قانسين هاي مصيرك ومد الصومال له وحو تحقلنا يا قضبك بقول يتضوبي يلا بعتن او شيغ يا قرني مدى الصومال لان يشريتان كيدو ميدان قرقورتن قلي كرين إناي تاهي ميدان يقفف قلل مصيرك ومد اين كوغوين كرين إناي تاهي ومد الصومال لان مسير كيدا ايو حسبك وطني مركز تبقى شاقين يا صدّن سنوات أي سومالي لا نسل عيسي سيدو مرن علن كيدو دوني دافعه دو قبب بالله ومبادئ حسبك وطني تاثيرا وقباء يموقف كقرن مدى السومالي لان وحسبك وطني كتاغي أنا قوكو هاد ليا أفكا حسبك أفكا قدوميها أفكا لامها الدبادة أفكا تاغيرياشا أفكا فلنتا حسبك وحان سكال يلابا وحان بليانا يا شعبك جمهورية الصوماليلاند الدرينكا dadnimada san ku dheehan yahay kaga falceliyay weerarka qaawan ee jiritaankooda iyo midnimadooda ummadeed lagu soo qaaday fashilka xukuumadeed ee kulmiya dalka uu baday iyo falcelintooda waxaan ummadda ugu hambalyeynaa aragtida siliimka ay qaateen waxaan ugu baaqaynaa midnimadooda wada jirkooda qarannimadooda sharaftooda calankooda haybadooda intaba inay ilaashadaan mar labaad sidoo sheegay gudoomiyaha golaha guurtidu waxa loo dhag raaricinayaa inuu labada aqal la hadlo madaxweyne Muuse Biixi bulshada ku dhaqan caasimadu waxaan ugu baaqaynaa inay sida gudoomiyuhu sheegay u dhag raariciyaan oo ballankeenu noqdo bari toole iyo baarlamaanka iyo wixii ka soo baxa madaxweyne Biixi فرينتا حسبك فريا بارلمانك جمهورية الصوماليلاند مدنيال يمروين واحد انتهين مدنيال كوكيل شعبك الصوماليلاند مركز اللي يدين ليا وكيلاتين واحد وكيل كتهين دادك عن عدك ودميل دير كودعين واحد كراستا كفر ديدان عدك شعبك جمهورية الصوماليلاند مداش بارلمانكو ما هم مدال مسرحيادات اوا مدال مصير امداد ادكو متليسان وحنو كدغنا بريتوله سوحن يا صعب سيدي عادة وهاي تصور كبارلمانك جودي سنة دعوة درين تأكد ورينو بريتو لي ما دبانو وقباقنا حبناها قولها بارلمانك كوتشرا أو سؤاله كنت على مصير كقرن مدى جمهورية الصوماليلاند أي مدحونا مصبي حدتك يدلك ورتيسة أي كويديات قدوميها حسب جوه شوجي مقالة الديس أبابا عاصمة دلك إثيوبيا وقاله وكقبي ما يشيرين كلن كده حمري فرماتشو iyo madaxweyne biix waxay ahayd wax ku kooban qofof qarankuna inay qofof ka taliyaan masiirkiisa waa wax ka weyn saddexda labada xisbi qaran wax tala oo ay xukuumaddu soo gelisay ma jirto haba yaraat meel xukuumaddu ay kula tashatay ma jirto golayaasha sharci dejinta ama baarlamaankana meel ay kula tashatay ma jirto waxaanu xisbi ahaan iska bari yeelaynaa oo ka bari yeelaynaa gudoomiyaha iyaga iyo xisbiguba inaan wax halaaliyo wuxuu ka ogaa falalka foosha xun ee qaranka soo wajahay ayna san jirin xisbigu waxa ka soo bixi doona go'aan weyn
oo loo dhig taagayo waxaana go-aanka sheegi doona guddoomiyaha xisbiga insha allah biidni illaahi baari ballankeennu waa ilaalinta somalilan sharafteeda quruxdeeda qarannimadeeda iyo midnimadeeda waa kii hadraawi gabaygiisii gudgudo ku lahaa kol haddaan garaad loo lahayn way iska gubataa geedkeedba waa sixir haddaan la liilayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu waxaaban ka hadlayba anigu hadda hadalkayga inuu geesuu kaa maray garan maayo waxaan sheegay mowqifka xisbiga qodobka labaad ka hadlayba mowqifka xisbigu waa masiir ummadeed qodobka dastuuriga 127 baa sheegaya wax laga bedeli karaya xitaa soo hadalqaadka xaaraana buu dastuurku leeyahay masiirka ummadaasi ay gaadhay in la taabtaabto wuxuu dastuurku ka qabo ee shicibka Soomaaliland ka falceliyeen ayuu xisbiguna ka qabaa taas